عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومركلة إيوه إنجنير مبارك محمد. عشر كيني لبات مانتا وحو كسابسن ياهي simple present tense. كي هوري عشر كي هوري كواد وحان كسو hadalnay simple present continuous tense أما simple progressive continuous tense. maanta waxaan ka hadli doonaa simple present tense tensiga labaad. Simple present tense is used for an action which takes place or happens every day. Simple present tense waxaa loo isticmaalaa fal dhaca maalin walbo. Fal dhaca maalin walbo is used for an action which takes place or happens every day. وفال دعا مالين والبو. present tense waxaa loo isticmaalaa fal maalin walbo dhaca every day maalin walbo. qaacidadiisa waxaa waaye subject plus verb plus s plus es plus ies plus object. qaacidadan meeshaad ku aragto waxaa iskale simple present tense. Simple present tense markii laga hadlayo I, we, you, they waxay qaadanayaan do. It means markii su'aal laga dhigayo I, we, you, they present tense markii la joogo ee la rabo in su'aal laga dhigo jumlada waxaa la adeegsanayaa do. waa qaacido jirta, waa macna, waa rule uu leeyahay simple present tense. He, she, it saddexdaana meeshaad ku aragto ayagana waxay qaadanayaan das. Do iyo das meeshaad ku aragto waxaa waaye waxaa laga hadlayaa markaas simple present tense. Okay, tusaalaha aan sii gudagalno marka examples. Statement markay tahay jumlad caadi ah markay tahay ee la joogo simple present tense. Okay, I go to school. I go to school. aniga waxaan aadaa school. taasoo macnaheeda ah schoolka waxaan aadaa maalin walbo. I go to school every day. macnaha waxaa ku qarsoon meeshan schoolka inaad aadid maalin walbo. I go to school. I was subject. Go was verb. To was aska preposition and schoolna object here. Okay, I go to school. aniga waxaan aadaa schoolka maalin walbo. I go to school. aniga waxaan aadaa schoolka. inta waxaa ku qarsoon marka oo hidden ah every day. macnaha schoolka inaad aadid maalin walbo. Okay, he goes to school. He asaga goes to school. wuxuu aadaa schoolka. macnaha waxaa laga wadaa asaga schoolka wuxuu aadaa maalin walbo. goes hadda marka ficilkan waxay ahayd awal I markay tahay waxaa waaye ficilka sidiis go ahaa. macnaha I go to school. hadda he aan dhahnay goes aa la dhahay es aa meeshan kusoo beera. oo qaacidada waxay ahayd verb plus s plus es. hadda marka waxaa shaqeeyey marka es. He goes gowdii waxaa raacsiiyey marka es. He goes to school. asaga wuxuu aadaa schoolka maalin walbo. He goes to school. asaga schoolka ayuu aadaa. That means maalin walbo ayuu aadaa. marka go ficilka asal wuxuu ahaa go. marka he goes to school ay noqonaysa. macnaha maahan he go to school ma dhihi kartid. sharciga waxaa waaye marka waxay noqonaysaa marka he goes to school. wuxuu aadaa schoolka. macnaha qaacdo waxay ahayd he, she, it, das waa ujeedaa es aa raacsan. es waa sharciga. marka he goes to school. schoolka ayuu aadaa. that means inuu schoolka aado maalin walbo aa meesha ku qarsoon marka. markii la joogo simple present tense waxaa jira wax ku wareerin verbka. hadda go
waa verb marka he markaan qaadanay hadda sharciga waa aragtay he she it waxay qaadanayaan das do maxaa loo dhigi waayo do lama dhihin sharci maaha das that means marka es meesha raacsan do waxaa raacsiiyey es das marka he meeshaad ku aragto marka waxay qaadanaysaa marka goes and he go ma dhihi kartid he goes to school she goes to school marka laakiin I goes to school ma dhihi kartid I goes to school waxaa leedahay I go to school waxaan aadayaa iskuulka taas oo maalin walba inaad iskuulka aado okay she ayada she reads her lessons every day she ayada reads waxay akhrisaa her lessons casharadeeda every day maalin walba macnaha hadda read verbka asalkiisa wuxuu ahaa read waxaa la raacsiiyey s verbkii waxaa la raacsiiyey verbka wuxuu ahaa asalkiisa read s la raacsiiyey verb oo lagu daray s that means marka waxaa laga hadlayo waxay yihiin simple present tense maalin walbo wax dhacaya waxaan soo sheegnay inuu yahay simple present tense maalin walbo fal dhacaya in loo isticmaalo every day wax socda maalin walbo okay and she reads her lessons every day she reads her lessons every day waxay akhrisaa ayada casharadeeda maalin walbo ma dhihi kartid she read her lessons haddaa dhahdid sharciga simple present tense sharcigiisa waa gudubtay khalad imaana marka waxaa leedahay marka she read haddaa dhahdid macnaha she read haddaa dhahdid ficilka isbedelay macnaha isbedelay she read her lessons she read waxay noqonaysaa simple past read waa akhrisay she read way akhrisay noqonaysaa marka isbedelay haddii esta ka saarto macnihi yani simple present tense ma noqonayo marka sidaa daraadeed read wuxuu ahaa verb asalkiisa verbka waxaa la raacsiiyey s waa qaacidada macnaha ruulka u degsan simple present tense marka waxaan leenahay she reads her lessons every day waxay akhrisaa ayada casharadeeda maalin walba she reads waxay akhrisaa her lessons casharadeeda every day maalin walba okay aan fiirino markii laga dhigayo su-aal markii su-aal laga dhigayo marka waxaan leenahay do I go to school waxaan isticmaalaynaa marka do I go to school miyaan aadaa aniga do I go to school miyaan aadaa aniga okay and tusaalaha labaad does he go to school miyuu aadaa asaga waxaan soo sheegnay macnaha markii su-aal laga dhigayo I we you they intaanba markii su-aal laga dhigayo in la isticmaalo do sidoo kale he she it saddexdaan markii la isticmaalayo saddexdaana markii la isticmaalayo markii laga dhigayo su-aal in la isticmaalo does marka waa qaacido macnaha waa rule u degsan simple present tense and does he go to school miyuu aadaa asaga does she read her lessons every day casharadeeda miyay akhrisataa maalin walbo does she read her lessons every day casharadeeda miyay akhrisaa maalin walbo read waxay ahayd markii statement ay tahay waxay ahayd reads esaa raacsanayd laakiin hadda st waa laga saaray verbka asalkiisa soo celinaynaa markii laga dhigayo question markii laga dhigayo aragna markii laga dhigayo negative markii laga dhigayo waxaa la isticmaalayaa don't ama do not marka ha ku wareerin don't waa do not oo lasoo gaabiyey wax kale ma aha okay marka I don't go to school ma aado aniga I don't go to school I do not go to school iyo I don't go to school haddaad dhahdid waa isku mid just the same he doesn't go to school asaga school ma aado ama he does not go to school
marka akhyari aniga hadda waxaan rabaa kaliya inaan indhaha idin furo haddaad rabtiin inaad baratiin baarkan oo sii faahfaahsan waxaa raadsanaysiin buwaagtiisa hal fahmin malaynaya okay she doesn't read her lessons every day casharadeeda ma akhrisato ayada maalin walba she doesn't read ama she does not read ma akhriso her lessons casharadeeda every day maalin walba and I hope in la fahmay fadlan ha ilowin inaad channelka subscribe garayso si aad ula socoto casharada soo socda ee taxanaha insha Allah. Wassalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa inoo casharka kale.